الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan ku soo gudbinayaa maansa gaaban maansadan garbasaar baa la yiraahdaa anigoo magacaygu yahay Bare Ahmed waxaan halkan ku soo gudbinayaa maansadan gaaban maansadan waxay ku soo baxday anigoo maalin suuqa Hargeysa maraya ayaa waxa iga soo horbaxay abwaankii weynaa ee abwaanadan Tarabi Jaamac markii aanu cabaaris wareysanay aan salaamay isagu ima garanayn sababtoo ah dhowr iyo 10 sano dalka ka maqnaa ayaanu cabaaris wareysanay markii waxay ku soo dhacday maansadii si goodiyo guuleed maansadii caanka ahayd aadan Tarabi lahaa ee goodiyo guuleed bay ku soo dhacday maansadii baan markaa aniguna maansadan ka mariyay abwaanka dushiisii markaan abwaanka salaamay ayaan maansadan mariyay beedka ugu horeeyay halkaas uu maaragtay aan ka curiyay maansadan garbasaar baa la yiraahdaa laakiin asalkeedu waa goodiyo guuleed qaybteedii koobaad baan caawa halkan ka marinaya qaybaheeda dambena waqti dambe ayay noqon doonaan aadan baa ku halqabsanay wuxuu yiri geesi aadan Tarabow geedka weyn ee damalkee lagu wada gamaayo in kastoo gar lagu furay goodkiiba guuleed goodkiisa laga rogay gaabis weeye maantana karbadiiri weligeed ninku guura geediga gurgurka iyo haamaha gabanada ka buuxsada guriya sama markuu dego gowracaya mooyee awey gacaladeedii garmaqaatayaashiyo gaalada la socotiyo gorayadan guclaysiyo gaagaalayaashanu maynala garaadba afartaa gooshaaliyo garbasaar sidii gabadh guudka ma ugu soo xidhay gaafka may la socotaan mid kalaan giraamahan galabsaday ku daraya inkastoo galoolkiyo gumarta iyo jiici gobka midhaha laga guro guudka ay sinaadeen waqtiga galbanaya isku geed ka wada dhigay isna waagadiise gabna dhalenin baa yiri hadii geela lagu daray kuuga dhow ku sii jiro garba qabashadiisiyo gaadaala xumidiyo gerbisku ku dilaya afartaa gooshaaliyo garbasaar sidii gabadh guudka ma ugu soo xidhay gaafka may la socotaa mid kale aan giraamahan galabsaday ku daraya inkastoo galaaskii codka loogu soo guray wuxuu yahay nin iyo gabadh weli aan la kala garan niman jilayaal oo reer Burca ama reer Soomaaliland ayay sheeko waxay ku dareen war waxaynu dooranay ma nin buu haamse gabadh ayay sheeko ku dareen inkastoo galaaskii codka loogu soo guray wuxuu yahay nin iyo gabadh weli aan la kala garan isna waagadiisii sida geela baydhaba ninka ganafka taagee guuldarooyinkiisii guusha waarkaayo godku waa abeese gurigaaga aakhiro waxaad galabsatayaan afartaa gooshaaliyo garbasaar sidii gabadh guudka ma ugu soo xidhay gaafka may la socotaa mid kale aan giraamahan galabsaday ku daraya inkastaanay guuraha ama galab carowtiin geela iyo adhigi kala geedi dheeray waqtiga galbanaya gaariga ku wada sido isna waagadiise ninka gacan ku dhiiglaha sacabka u garaacee gurigiisa geeyo googo alla siiyo kuna lagu sabayo gabalkaagi baa dumay waa kuwan gacan ku dhiigle ama nin siyaasi oo dhagaraysan ayay iyagoo doonaya maaragtay si ay u helaan dhaqaale iyo wax noocaas ayay maaragtay u sacabka u garaacayaan hogaaminayaan meel aan laga jeclayn bay ku qasbayaan inay geeyaan ninka isna waagadiisii ninka gacan ku dhiiglaha
sacabka u garaacee gurigiisa geeyo googo alla siiyo gurno lagu sabaayo gabalkaagii baa dumay afartaa gooshaaliyo garbasaar sidii gabadh guudka ma ugu soo xidhay gaafka mayla socotaa mid kalaan giraamaha galabsaday ku daraya inkastoo duqii go'ay ma goblaminin goodkii gabanuu ka tegayo gabanadu ka tegay baa geyigeena joogo gobolada galbeedkay rag ku gowraceeno go'y mayso godobtiye gurmad baa ku soo dhow afartaa gooshaaliyo garbasaar sidii gabadh guudka ma ugu soo xidhay gaafka mayla socotaan mid kalaan giraamaha galabsaday ku daraya ma gudbow ma guurtaa ma gabraarataa weli ma gurguurataayo ma gargaaraysaa diin mise waa gedaadee gacalkiiyo xigaalkiyo gabanada walaalkaa garbahaaga jooga warankaagu gaadha marka qaybtii koobaad ee maansada garbasaar asalkeeduna yahay good iyo guuleed halkaa bay noo joogaysaa